shir looga hadlayay kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ka furma Garowe waxaana ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Puntland wariyaheena Cabdiwali Nadaara ayaa warbixintaasi inoo haya. waxaa maanta magaalada Garowe laga daafuray shir lagaga hadlayay dib u dhiska iyo maalgelinta airportyada laamiyada magaalooyinka Puntland. Shirka waxaa hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dibadejinta dowladda Soomaaliya Axmed Cabdi Kaahin iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo guryeynta Puntland iyo hay'adda UNPS oo iyaduna maalgelinaysay shirkan. ugu horeyn waxaa madasha furay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo guryeynta Puntland oo ahayd inaan ka shaqeyno oo aadno iyo inaan hawshan intaan ka qayb galno si fiican uga qayb galno meel isla dhigno marka xoogaa waqtigaas inna ka dibdhacay waa idinka raali gelinaynaa. waxaa laga yaabaa dowladda federaalka meel baynu ku kala duwannahayo subaxii bay soo daahaaneen oo waxaa laga yaabaa shaqada goortay war helaan howlu waa badan yihiin baa la aadaa waa laga tawaxyaayeen laakiin wayna kaga dambeeyaan shaqada marka dambe. innagu waxaa laga yaabaa labada iyo inaan ka baxno iyo waxaa la arkaa afarta shanta inay ku gaaraaneen shaqada iyo hay'adihii ka soo qaybgalayaasha dhammaantiina waan idin salaamayaa. iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa anoo idinla soo dhawaada wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka. dhinaca kalena waxaa isaguna ka hadlay ergey ka socday hay'adda UNPS for other emerging states, other states in Somalia, about how they develop their public works department. Everyone for all the presentations today, and just say that I was very pleased to see how much Puntland has moved forward in developing its Ministry of. waxaa soo afmeeray shirkan wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dibadejinta dowladda Soomaaliya Axmed Cabdi Kaahin. joogtada ah iyo howlaheena aan marba wadaagno iyo sida aan shirarkeena iyo howlaheena u leenahay kulamada kuwan ku xiga ayaan ka keeni doonaa jawaabta iyo hawsha ku haboon insha Allah. taas waa iyadana guulan ka rajeenayna. sidoo kale tii dekedahana qorshe iyo iyadana nidaam ay leeyihiin aduhu shaqooyinna waa wada leeyihiin waxna waa kala leeyihiin ayada laftigeeda qorshaha hadda laga leeyahay qaybaan ka nahay waa ogtihiin wasaaradda howlaha guud ahaan waxaan ka keenaynaa iyadana meesha hadda qorshihii u dambeeyay uu marayo iyo sida priority-ga u kala leeyihiin. waxaan ku kalsoonahay in wax badan masaafada isu jiro ha noqoto baahida ha noqoto si u jirto lagu dhisi doono insha Allah. aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa runtii sida looga wada qayb qaatay hawshan. berrina waxaa noo dhiman qaybo kale oo aan ku tegi doono goobo noo calaamaysan. haddii aanay jirin su'aalo shirku maantay feeskiisii koowaad waxaan jeclahay inuu intaas. waa Cabdiwali Cabdilaahi Diriye telefishinka caalamiga Somali News magaalada Garowe.